ma ogol in la jarjaro qaybo ka mid a jidhkayga. Uma aqaan taajirnimadu inay tahay lacag. Anigu ma qaadanayo heshiisaan dadkayga ku laynayo. Iska indha tir wax kasta, balse dulmiga masaakiintu waa adag kan koowaad eed u dagaalanto. Aniguna sidaas ayaan ahay. Waa eriyo ka mid ah hadalladii iyo fanaankii yaabka badnaa ee Bob Marley. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? I don't have that type of richness. My richness is life. maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena ninka la magac baxay boqorka riigaha Bob Marley hoobalka iyo fanaankii reer Jamaica sababtii ay mas'uuliyaddu u dishay ujeedka dilkiisa loogu tilmaamo kansalka ka dhacay xagga maskaxda isaga iyo xiriirka ka dhaxeeya diinta lagu magacaabo Rastafarianka xigmadii iyo hadalladiisii cajiibka ahaa taariikhdii yaraantii iyo xogo badan oo quseeya fanaanka iyo hoobalka mucjisada ee Bob Marley balse ka hor inta waxaan idinka mahad celinayaa sidaad ula socotaan YouTube-keena Baldahab TV la garay muuqaalka si uu gaadho dad badan subscribe haddii aad nagu cusub tahay lana wadaag saaxiibadaada haddii ay macquul tahay asalka magaciisu waa Robert Nesta Marley balse wuxuu dhagaha adduunka ku shubay magacawaalida badan ee Bob Marley waa hoobal musician iyo qoraa heeseed dhammaystiran kaasoo dhashay 6 February 1945 muu ahayn mid iska heesaya sida fanaaniinta qaar Bob Marley balse wuxuu ahaa shakhsi fahmaya dareenka shacabka iyo hadba xaaladda taagan kuna gudbinaya midhihiisa nuxur ka weyn hees waana astaan ka mid ah sababaha uu caan uga noqday gebi ahaanba adduun weynaha iyo caalamka oo dhan Bob Marley music career. cunsuriyadu waxay ahayd mid saamaysay asalka noloshiisa waxaana taariikhda ku xusan Bob Marley in aabihii oo ah kabtan ka mid ah ciidamada Ingiriiska uu jeclaaday hooyadii oo ah gabadh madow Jamaican halkaasna uu kula kulmay cunaqabatayn markii uu guursaday ilamaan laga eriyay ciidamadii badda sababo la xidhiidha hooyada Bob Marley dhashay guurkeeda oo asal ahaan iyo jinsiyad ahaanba kala duwanaayeen ninka reer Ingiriis ee dhalay Bob Marley shaqo la'aantii cunfiga iyo cuqdadiina waxaa la sheegay inuu dhintay isagoo markaasi jira 7 sano Bob Marley aabihii inuu ka tegay gebi ahaanba adduunka faithful to any one woman? No. Why? wuxuun buu ahaa hoobalka weyn iyo fanaanka caanka ee Bob Marley mid kala midaysan dareenka iyo muusig jacaylka dadka reer Jamaica waana astaan ay caan ku yihiin Jamaicaanku saamaynta weyn ku leeyahay muusiga iyo fanku wuxuuna si la mid ah qof aad u jecel fanka iyo heesaha Bob Marley halka Soomaalida lagu naanaysa Nation of Poet ama ummadii hadalka iyo gabayga waxa iyagana lagu naanaysa Nation of Music ama qarankii muusiga qaabada iyo nooca ugu caansan asalka muusiga Jamaicankuna waa kan loo yaqaan riigaha waana ku magaca boqorka riigaha kula baxay Bob Marley haddaba aan isweydiina sida ayuu ku bilaabay fanka qaabkee ayaanu ku soo galay maxase ku kalifay inuu heeso Bob Marley isagoo wiil yar oo danyara maxayse tahay dadka haysta Rastafarianka fikradda qaldan ee sababta uu Bob Marley ugu yaqaanaan rasuul u soo baxay Rastafarianka hoobalka Bob Marley wuxuu gaadhay inuu yeesho balaayiin taageerayaal kuwaasoo gaadhay xataa inay rasuul ahaan u adeecaan waxaasi la og yahay kaliya inuu ahaa fanaan aaminsan fikradda Rastafarianka oo ah in wax kasta asalaan ka yimaadeen qaaradda Afrika midabka cagaarka iyo jaalaha isugu jira waa astaanta sax ee fikradda Rastafarianka ama Afrikanismka oo wax kasta ah inay ka yimaadeen Afrika diin iyo dadba adduunka markii ugu horeysay waxaana ugu caansan dadka aaminsan fikradda amaba aaminsana Bob Marley iyo Haile Selassie waana halka calaamadda jaalaha iyo Etoobiyaanku xidhiidh ka leeyihiin waxaana macquul adigaagani inaad xataa aaminsanayd Bob Marley inuu ahaa fanaan Etoobiyaana haddaba balaan eegna sida ay ku dishay mas'uuliyaddu iyo sidoo kale halkii ay isugu yimaadeen iyo goobta ay isugu soo galeen fanaanka iyo hoobalka Bob Marley iyo qolyaha aaminsan mas'uuliyaddu iyo sidoo kale waxyaalihii dhex maray Position make you rich? I don't have that type of rich.
hoobalka iyo mucjisada Bob Marley qolyaha maasuuniyadda markay arkeen inuu yahay shakhsi saameyn leh gebi ahaan ereygiisa aan cididiidaynin haysta malaayiin taageerayaal ah ayay damceen inay fikradooda uga faa'iidaystaan sina dhex mariyaan qiyamka iyo waxay aaminsan yihiin heesihiisa cajaa'ibta badan ee dadku aadka u jeclaysanayeen waqtigaas iyagoo uga faa'iidaysanaya inuu ahaa qof ku soo koray gaajo iyo nololaad hooseysa tusayana adduun aad u ballaadhan una ballan qaaday inay adduunka wuxuu jecel yahay gebi ahaanba ay siinayaan muddo kooban Bob Marley balse maxaa ugu jawaabay markaas maxayna tahay sababta ay u dileen Let's talk about Bob Marley's career. A young Bob Marley pursued his education. isla markii ay u soo bandhigeen hoobalkii fanaanka caanka ah ee Bob Marley qolyihii maasuuniyaddu fikradooda ah inuu xambaaro odhahdooda ugu gudbiyo dadka iyo taageerayaashiisa si fududna uga dhaadhiciyo qiyamkooda iyo waxay aaminsan yihiin Bob Marley gebi ahaanba wuu ku gacan saydhay arrinkaas waanu kaga baxay weliba sacad ayuu bilaabay inuu uga hor yimaado isagoo uga digaya dadkii una marinaya fanka iyo heesii ay fahmayeen waqtigaas awal hore waxaa dhiggiisa haysatay ereyga cunsuriyada oo hore loogula kacay hooyadii faamilkiisa balse markan waxuu ka dagaalamayaa wax intii ka weyn oo ah shaydaan caabud iyo diin inuu ku fidiyo fankiisa iyo heesihiisa waana marka uu soo saaray heesihiisa ugu waalida badan ereyada culus ay ku jiraan ee gudbinaya afkaarta maasuuniyadda gebi ahaanba in laga hor yimaado kuwaas oo ay ka mid lahaayeen midhahooda ha ka yeelina inay dib idin aftuubtaan ha u oggolaalina inay idin iibsadaan ha ka gadanina sharaftiinna maasuuniyadda ka digtoonaada waxay idiin sheegayaan Bob Marley maalintaa waxau qiray ereyga caanka ah ee ah adigu ha u sheegin dadka wax wanaagsan oo adiguba qabanaynin ama adigu aanad samaynaynin markaad wanaag samayso kula tali inay wanaag sameeyaan waxaanu run ka sheegay wixii iyo xaqiiqadii markaasi u aaminsanaa Bob Marley waana marka ay gebi ahaanba noloshiisa soo kadoodatay ee ay u soo gaabiyeen qolyaha maasuuniyadda iyo shaydaan caabidku haddaba sidee ayay u dileen Bob Marley iyo boqorkii riigaha mucjisadii fanaankii Bob Marley markii uu qaaday heestaas waxay ahayd maalinkii dhimashadiisa la qorsheeyey iyadoo ay uga dhex muuqatay qolyaha maasuuniyadda inaanay jirin sabab ay u sii daawadaan ninkan waayo wuxuu ceebeynayaa gebi ahaanba fashilinayaa afkaartooda foosha xun haddaba dhimashadiisa Bob Marley waxaa adduunka lagaga dhaadhiciyey inay ahayd kansal kaga dhacay dhanka maskaxda iyo sambabada beentuna waa mid lagu aamusiyey taageerayaashii Bob Marley gebi ahaanba inay joojiyaan qaylada iyo sawaxanka waa la dilay balse nasiib darro mar kale xaqa ayaa soo daahiray 40 sano ku dhowaadna waxaa soo baxay nin qiranaya dilka Bob Marley kaasoo si cadaan u dilay kana dambeeyay gebi ahaanba dilkiisa sheegana inay ahayd mu'aamarad iyo shirqool uu oogay ninka iyo boqorka riigaha ee Bob Marley considered himself a true member of the Rude Boys, and it's hard to imagine him being part of a gang. ku dhowaad muddo 40 sano kadib dhimashadii Bob Marley waxaa soo baxay nin la yiraahdo Billy Oxley oo qirtay dilka Bob Marley waxaanu yidhi waxaan ahaa basaas ka tirsan sirdoonka ciidamada Mareykanka markaas Bob Marley wuxuu ahaa mid ka mid ah 7 qof oo si weyn u ataagsana ugana hor yimi fikradda iyo afkaarta iyo qiyamka maasuuniyadda waxaana waajib ahayd inaanu dilo 7 qofba waxaanu liiskayga ku soo biiray aanu dilayno markii uu si cad uga hor yimi oo dhahdii fikirkii aanu u soo gudbinay keliya intaasi may ahayn waxaanu ku dilaynay balse waxa uu bilaabay faafinta iyo ka horimaadka kacdoonka in laga hor yimaado oo si cad loola dagaalamo waxa la yidhaahdo maasuuniyadda waana sababta aan u dilay Bob Marley boqorkii riigaha iyo fanaankii mucjisada ahaa ee reer Jamaica children that were born from his sexual encounters. Marley's legend lives. wuxuu yidhi Billy Oxley wayaadkan in si fudud loo dilo Bob Marley waxaan si qorsheynay fikir aanu ka badbaadaynin markan gebi ahaana markan aanu si fudud u dhaafinayna nafta iyadan cidina dareemin waxaan ogaanay inuu aad u jecel ciyaarista kubadda cagta waxaan soo iibiyay oo soo gaday kabala leg ahna siiska cagta ninka la yiraahdo Bob Marley markaa kadib waan la soo xidhiidhay waxaan u sheegtay inaan ahay wargeys ka socda New York Times
markan waxaan ogaa Bob Marley inuu raadinayo wargeysu la wadaaga gabi ahaanba xoogaha uu ka hayo maasuuniyadda waxaana yahay taasoo fursad uga faa'iideysan karo markii aan u soo bandhigay mana uu diidin waxaanu siiyey muddo aanu ku ballanno iyo meel aanu isugu nimaadno markii aanu kulannayna waxaanu dilay sidan Singer, songwriter, and musician Bob Marley. So let's go to markaan wada fadhiisanay Bob Marley xoogaa yarna waraysi oo na dhex maray ayaan waxaan soo saaray anigoo muujinaya farxad saayida kabo aad u qurux badan gabi ahaan aad u qaali ah waqtigaas waxaan u sheegay kabahan inaan isaga ugu talagalay si iska xagtiisana ay ku fadhiyaan Bob Marley aad ayuu ugu farxay isla durbadiina waxa uu geliyay adinka markaasi waxay ahayd markaan ku guulaysanay mishinka dilka Bob Marley waxaana mudday irbadaan ugu talagalnay inay u gudbiso kansalka waxaanan markaasi irbadaasi ay ka mudday ciribta iyo adinka xaggiisa hoose ee uu geliyey kabta sidaasina ayay dhiiggiisa ku raacday oo ugu faaftay Bob Marley wixii la odhan jiray kansalko album Catch a Fire for the label Island Records. It was Bob Marley marka waxaa suuro gashay in lagu guulaystay in irbaddan kansalka gabi ahaanba jirkiisa lagu mudo sidaasina ay dhiiggiisa ku raacdo waxaanu kansalku uga bilaabmay lugaha balse Bob Marley markii uu dareemay inuu kansal hayo dhakhtarkuna uu cadeeyay warkaas waxaa loo sheegay in la jaro lugtiisa si loo badbaadiyo jirkiisa qaybaha kale oo laga kantaroolo kansalka maadaama kansalku qaybtu ka dhaco ilaa la jaro mooyaane si kale aan lagu daaweyn balse Bob Marley wuxuu aaminsanaa fikir iyo qiyam odhanaya qofka jirkiisa lama jarjari karo kaasoo ay aaminsan yihiin gebi ahaanba dadka aaminsan waxa la yidhaahdo Rastafariyaanka iyo qiyamka noocaasi ah waxaanu yidhi ma jarayo qaybo ka mid ah jirkayga sidan haddii aan ku badbaadiyo waan ku badbaadi haddii aan ku dhintana waan ku dhiman waana sabab iyo arrin walba lagu ogaayay qiyam ay aaminsan yihiin dadka Rastafariyaanka ee reer Jamaica ee aaminsan waxyaalaha Rastafariyaanka iyo diintaasi taasoo ay aaminsan yihiin xataa tiinta inaan la jari karin iska daa qaybo ka mid ah jirka waana afkaar iyo fikir ay aaminsan yihiin diiniyan iyo caqliyan iyo qiyam ahaan dad dhan iyo qaybo dhan oo dega waddanka Jamaica waxaana loo yaqaanaa Rastafarian dadka iyo waxay aaminsan yihiin Bob Marley waa sababta xataa aanu timihiisa u jari jirin ilaa yaraantiisii haddana waxaa jira dad oo sidaasi timaha u goosta xataa waxaa jira wiil isagu dhalo leeyahay Siga Marley oo qaabadiisa iyo fikirkiisa aaminsan kuna raacsan arrinkaas aabihii Bob Marley Bob Marley has a huge fan following on Twitter, Instagram, Bob Marley oo lahaa shakhsiyad wanaagsan marka la eego dhanka bini'aadamnimada kaasoo ka dagaalamayay fikriyada foosha xun ee maasuuniyadda sidoo kale nacbaa cunsuriyadda gabi ahaanna xataa lagu xuso inuu quudin jiray oo wax siin jiray kana bixin jiray maalin nololeedkooda wax ka badan xeryo ay ku jiraan 5,000 oo qof oo danyar ah aana ku ah sidoo kale erayada iyo gabayada heesaha ka dagaalamaya waxyaalaha foosha xun waxay gabi ahaanba noloshiisa soo afjareen 12 May 1981 hoobalkii iyo fanaankii mucjisada ah ee Bob Marley sidaasi ay uga guulaysteen qolihii maasuuniyaddu balse waxaa sharaf u ahayd inuu ku dhintay fikirkii quruxda badnaa uu kaga soo horjeeday qolyaha shaydaan caabudka haddaba daawade adiga maxaad ka taqaanaa shakhsiyadda Bob Marley maxaad ka ogtahay qaabka loo dilay fikir ahaan maxaad u taqaanay ninkan hadda ka hor intii aan daawan muuqaalka aragtidaada iyo sidoo kale cidda aad jeceshay inaan ka soo qaadano muuqaalo noocan oo kale ah nugula wadaag qaybta hoose comment sectionka la garee muuqaalka si uu gaadho dad badan subscribe si aad u noqoto daawadaha koobaad ee muuqaaladeena lana wadaag saaxiibada haddii ay macquul tahay